waan idin salaamay dhalinyaro dhammaantiin. Maanta waxayna wada seasonkeena qaybtiisa labaad. Fadlan channelka dadka cusub subscribe inoo saar. Seasonkeena wuxuu inoo joogay Jane oo dhibaatadiisa dhan uu qabo uga sheekeynaya E2 ayadana intii soo istaagtay ku dhahaysta may adigu xataa geesi waayo aniga ayad badbaadisa. Intaas kadib waxaan aragnaa Shane isagoo inuu aad u yaaban yahay waa isagu maligi ma arag cid dhageysatay uu iska ooyaya isagoo cil daranayo. Intaas kadib E2 ku soo tagay gameskiisa iska ciyaar jiray waqtiga isku dhaafin jiray ayuu ciyaaraya wuxuuna ku dhex arkay gamekiisa oo ciyaaraya E2 oo la soo gashay isaga gameka ayadana waxay ku dhahaystaan waxaan ku fikiray inaad halka joogto sidaas darteedna waan ku soo raadiyay bal ka waran haddii gameka dhexdiisa noqdo walaashada kaaweyn ma aqbalaysaa ma soo dhaweynaysaa isna wuxuu ku dhahayaa haa waan ku soo dhaweynayaa laakiin ayadu waxay dhahaysaa waxaan ka baqayaa in anigu dhibaato kugu noqdo isna wuxuu dhahayaa istajiig ma noqonaysid anigu waxaan ka cabsadaa qofka markuu i hortaagan yahay ayaan ka cabsadaa in hadal khaldan idhaahdo intaas ka bacdi waxaan aragnaa Jane oo soo galay guriga wuxuuna arkay in gurigu bilasan qadhiyaan cidba joogin kadib uu soo raadinayaa E2 wuxuuna arkay in qolkeedii ku jirto kadib uu la hadlay ayaduna ma maqlayso game bay ciyaaraysa wuxuuna arkay in walaalkii la ciyaaraysa gameka ay ku jirto isna wuxuu ku dhahay adigu ma rabtaa inaad walaalkii ka faa'iidaysatid ayaduna way naxaysaa waxay dhahaysaa iga raali noqon ilaa beenad iga digtay walaalka noloshiisa laakiin saanu isagu baan u naxay bay ku dhahaysaa isna wuxuu dhahayaa adiga ha welwelin aniga weligay kumaba tixgelin inaad tahay gabadh dhammaystiran kadib wuxuu u sheegay inuu saaka tagay iskuulka Shane si uu uga soo ogaado macalinkiisa dabeecadiisa inuu wax ka ogyahay isna wuxuu la yaabay markuu yiraahdo macalinkan wuxuu kama aqaanin ninkaas intaas kadib wuxuu E2 uga sheekeynaya maalmihii iskuulka dhigan jiray Shane oo lagu dhibaatin jiray isna wuxuu mar walba qofka difaaca ee ka celiya ardayda ee mar walba garab taagan kadib Shane wuxuu dareemayaa mar walba uu walaalkii garab taagan yahay oo difaacayo inay ka sii darayaan ardayda ka raacaysa isagana oo wax u soo kordhinin intaas kadib go'aan buu qaadanaya Shane wuxuuna go'aansanaya inuu iskuulka gabi ahaanba isaga baxo si uu uga nasto ciyaal foodada iyo dhibkoodaba intaas ka bacdi isagoo xasuusiisa ku dhex jira ayaa waxa si lama filaan ah u qaylinaysa E2 waxaana dhahaysaa ku guulaysanay gamekan ku guulaysanay dib ayaduna way soo xararaysaa waxay soo aadaysaa Shane iyo xagga joogay isna jaranjarada ku sii sugayay inaagaasi ku dabaaldegaan iyagoo soo xararsanay ciyaar waxa arkay Jane isla markii uu arkay Shane walaalkiina uu xishoonaya isaguna uu naxay kadib qolkiisa ayuu galaya isna gudaha ayuu ka soo dabagalaya wuxuuna bilaabay in walaalkiisa qeyrsiyo degan ula hadlo Shane wuxuu isku dayay inuu kalsooni siiyo walaalkiisa oo uu dhiirigeliyo Shane intuu istaag u dhahay adigu waxaan wax weyn ka dhigin waa ciyaar yar intaas kadib Jane cabs ayuu ka dalbanaya walaalkiisa wuxuuna dhahay in badan baraadinayo doonayay inuu ku raali geliyo raali noqo kadib Shane uu isku ooyay ilmadana macishanay isaguna Jane wuxuu gelinaya laabtiisa oo ma aaminsanaya kadib labada kalena wiilashu ku soo cararayeen habbaana siinayaan E2 oo farxasay intaas kadib waxaan arkaynaa iyagu dhamaantood soo wada raacay waxaan rabaa inay safraan magaaladii ku nool jirtay E2 marka laga reebo Shane waa isoo guriga u gaadhay wuxuu dhahay waa sharadeedan qaybeed ma raacayo intaas kadib markay soo gaaraan tuuladii ayaa E2 waxay arkaysaa saaxiibkeedii yaraantii waana ka hortiisa laabtii gelinaysa si ay u salaanto kadib waxaan arkaynaa inuu Jane sayd xanaaqsiiyay uu marba isku dayay inuu ka fogeeyo E2 ninkan intaas kadib waxaan arkaynaa isagoo wiilka soo fiirinaya isaguna waxba kama soo qaaday wuxuu sameeyay wuxuu imanay waxa ku dhahayaa E2 maaha iyadii sidaad u malaynaysid iyadii hooyadeed waxay soo maray dhibaatooyin aad badan kadib markii uu ka tagay aabaheed ninkuna haddaydan rabin inay la noolaato ii sheeg aniga soo ceshanaysa anaga kanaguna noolaato intaas kadib waxay bilaabayeen tiimkii oo dhan inay ciyaaraan ciyaartii dhudhuumashooga qof walba meel buu cararaya sida ma filaana waxaa kayntaas ku soo wada raacaya Jane iyo E2 isla markaasna ma ogola inuu mid ayada ka mid dhaqdhaqaaqo si aan loo qabanin E2 waxay si xishood badan soo fiirinaysaa Jane laakiin soo dambeeyay wuxuu dareemay inay soo fiirinayso wuxuuna ku dhahay maxaa ka khaldan maanta dhasay igu soo fiirinaysaa E2 waa isku xishoonaysaa waxaan soonaysaa isaga kacmeeshada way istaagaysaa iyaduna markay istaagto waxay arkaysaa in qof soo socdo intaas kadib markay hoos soo noqoto halkaas shil aad u weyn baa ka dhacaya kadib waxaan aragnaa maalinkii xigtay ayagoo kala dhacaya iyagoo mid walba iska weynaya intaas kadib Jane wuxuu wacay E2 waxaana ku dhahayaa fadlan adiga wixii dhacay waxba ka soo qaadan waxaasna wax weyn ma ahan laakiin E2 ayada sida arrinta ma aragto si lama filaan waxay bilaabaysaa inay qalbigeeda jacayl uga qaado Jane laakiin Said buu ka cabsanaysaa inuu sheegato kadib waxaa lana tusayaa E2 iyo casho karinaysa waxaana soo galaya Ben wuxuuna ku dhahay adiga maxaad qorsheynaysaa inaad dareenkaaga u sheegatid Jane E2 intii si xoog oo neefsada ay dhahaysa laakiin anigu hadda waxaan garaashin idinka weyn aniguna ma aqaano haddii aan jeclaado isaga waxa ka dhalan kara halka intaasna waxaa sii dheer anigu waxaan ka caawiyay inuu hadda waxbarashadiisa dib u bilaabo anigana ma burburin karo wax walba go'aan degdeg waan qaatay dartiisa kadib way dhaalcadeynaysa waxaana dhahaysaa si kastaba ahaatee anu hadda waan ku faraxsanay sidaan ahay maadaama idinkeedin daryeelayo intaas kadib bilooyin baa lasoo dhaafaya waxayna arkaynaa maalinkii ciidda iyagoo faamiliga isku xidhan wada diyaarinayaan gurigooda laakiinse jawiga isagoo sidaa farxad badan E2 ayada Said bal warwaraysa waxaana u imanaya Jane wuxuuna ku dhahayaa ii sheeg maxaad ka warwaraysaa ayadna waxay isku dayaysaa inay qariso waxaana dhahaysaa waxa ma jiraan
isna uu ku adkaysanaya inuu sheegto. Ayadna waxay ku dhahaysaa adigu wax ligo kuma lihid arrintan iska daa. Isna wuxuu dhahaya waayo markaan cashada karinada sheegaysaa in anigu wax ligo ku leeyahay in kale. Ayadna markuu hadalkaas ku dhaho Said bay u naxaysaa, waxaanay dhahaysaa waa in runta u sheegaa. Waxaanay ku dhahaysaa intaas kadib aan waxa kama qarin karo ee waan kaa helay. Diina wuxuu ku dhahayaa run miyaad sheegaysaa? Ayadna waxay dhahaysaa anigu dhabayga tahay. Waxaan ku dhahayaa waqtigiisii waan kasoo fikirayaa. laga bilaabo maalmahaasna wuxuu bilaabay isagu inuu Said u fikiro, uu ka fikiro hadalkay ku tiri Itu. Intaas kadib go-aan buu soo gaarayaa, wuxuuna u imanaya Itu. Wuxuuna ku dhahay iga raali noqo, aan waxaan ku arkaa xubin ka mid ah familygayga, arrinka aad sheegtayna suurtagal maaha. Ituna waxay isku daysay inay dhoola cadayso ay farxad muujiso. Waxaana dhahaysaa aad ku mahadsantahay maadaamaad codsigayga tixgelisay oona tidhi waan kasoo fikiraya. Ana ka baqan xiriirka qoyskeenu marnaba ma xumaanay, sidaas u wanaagsanaanaya weligii.